السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran channelkeena Expert Option Somali. Jumca mubaarak dhammaantiin. Insha Allah waxaan doonayaa website-kan inaan warning ka soo saaro ama digniin ka soo saaro. Maalin hore Telegram-ka waan soo dhigay warning dhalinyaro badan waxaa jirtay igu lahaa macallin. Maalin hore warning soo dhigtay warning-ka weli kama hadlin wuxuu yahay. Weli adan kaga warsugeynaa oo maartay mar haddii lagu yiri maartay dagaal baa kugu socda xabadu meel ay kaga socotana aadan garanayn way dhib badan tahay. marka dhalinyaro badan waxaa jirtay ii soo sheegay oo yiri maartay adaan ku xayiranahay maxaad naga damacday maadaama digniin noo sheegtay oo digniintii aad sheegin marka meel ay ku socoto oo kaliya aad ku soo qortay Telegram-keena warning bal digniintaas faahfaahin dheeraad naga sii waqti noo hel video noo soo duub noo soo dhig horta website-kan la dhaho Update iyo website kale oo aan isagana hadda aan ku jiro weli hawshiisii laakiin aan weli isaga aan warcad ka haynin ayaan rabay inaan labada website ka hadlo website-dan waxaad ogeyd in hore uga hadalnay oo aynu maartay lacaga badan kala baxnay oo imika haddaan eegno recordka withdrawal-keena haddaan withdrawal record-keena tagno adaar kasta in lacaga kala baxnay markaana kala baxnay saddex mar in lacag kala baxnay mar afraadkii inaynu isku dayno inaynu la baxno $22.8 in isku dayno in la baxno ay processing ku jirto maalinta in lacagtaas aynu la baxnayna inay ahayd wax loo yaqaano saada ujeedaanba inay tahay bishii 8 goor galab ah oo ay saacadu ku beegantahay 4:58 galabnimo in lacagtaas aan process u dirnay ilaa xataa al'aan aysan lacagtaas aysan success noqon nimankii waan la hadlay Telegram-ka waan kala hadlay meel kasta waan kala hadlay wax jawaab oo xilligaa la isii ma jirto lacagtaasi ilaa saaca maanta waxay ku jirtaa process markii aan u diray codsiyo fara badan iyo hadallo fara badan iyo waraaqo fara badan aan qoray waxay markii dambe iigu jawaabeen shirkaddii way kacday iyo waxyaalo noocaasa marka aniga iyagii waan isfahmi weynay in badan baa la hadlay waxaan ku yidhi arrintaa processing-ka iga xaliya ama lacagtii akoonka dib igu soo celiya oo ciladii jirta ii sheega marka weli ciladii ma sheegin nimankii waxaana u arkay all the way nimankaasi mar haddii aysan noqdeen inaysan ruleska iyo nidaamka aysan maartay ruleska iyo nidaamka inaga ku dhaqanno ayna la sii socon karin 22.8 maanta anu ka maarmi karaa laakiin waxaan ka xumahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aanan maanta maartay anigu haddii profit sameeyana filla alxamdulilah weli profit sameyna aan aad uga xumahay in maartay lacagtooda weli meesha kaga xiran tahay nimanka waa la hadlay dhalinyaro badan baan ku yidhi waxaad ii soo dirtaan midda kale waxaa rabaa dhalinyaro haddii cilad in qabsato lambarkaan rabo inaad ii soo dirtaan markii aad ku dhufataan homeka waxaan idin tusayaa lambarka gaaban oo idin leeyahay markasta screenshot iga soo qaada waa lambarkaasaan idin leeyahay markasta screenshot isoo dira haddaad lambarkaas screenshot isoo dirtaan waxaa ii fududaanaysa inaan screenshot-ka la wadaago shirkadda oo aan dhaho markaa akoonka noocaasa waxaa haysta cilada noocaasa waxaan rabaa in cilada noocaasa laga xaliyo waxaan rajeynayaa mar raba haddaa idinku celiyo markasta waxaan idin dhahaa ID-giina screenshot iga soo qaada marka ID-giina oon idin leeyahay screenshot iga soo qaada waa ID-ga noocaasa 12,645 weekeygu kiinana waxaa laga yaabaa inuu ID kala isticmaalaysaan marka ID-gaan rabo waa inaad ka screenshot iga soo qaadaan kadibna aad ii soo dirtaan marka website-kan all the way anigu website-kan hadda dhiilkiisa waan ka baxay ilaahayna iguma oga waxaad arkaysaa iminka in lacagtii weli ay principal ku jirto muddo hadda ku dhow taqriiban 15 casho all the way caawa bish waa 19 wey 19 ka casho waxaynu ka qaadanay taqriiban 9 cashan qaadanay 9 casho lacag kaa maqnayd lacagtan website-da marka ugu yartaa waxay kaa maqnaataa ilaa meelahaas 5 ilaa maartay 3 minutes bay kaa maqnaata marka lacag 5 minutes ilaa 3 minutes 9 casho dhashay inagu dhiilkaas dhiil aan kusoo jiri karna maaha oldowaan waan ka baxay dhalinyarta waxaan kula talin lahaa website-kan Update inay maartay don investment inaysan wax investment ku sameynin oo website-kan intay ka carari karaan ay ka cararaan intay ka fogaan karaan ay ka fogaadaan ana waxaan jeclahay khatarta inaan idinka hadlo khatarta inaan idin kala hadlo oo idin dhaho khatar xasba khatar ay ka fogaadaan waxaan rajeynayaa midda inaa fahanteen
website labada aan rabo inaan ka hadlo oo rabo inaan video kasoo duubo haddii ay iisoo jawaab waayeen waa websitekan in badan waan kasoo hadlay dhalinyaro badanna waan kala hadlay waxaan ku yiri maartay websitekan ilaa aan maartay anigu aan idiin soo sheego websitekan waxaa la yidhahdaa USDT-ga OTC-ga ah websitekan iyaguna waxay leeyihiin cilad ah qofka waxaa laga luminayaa oo ogaan looga luminayaa payment passwordkiisa dhalinyaro badan oo payment password kaga xiran yahay way iisoo sheegeen waxaan rabaa inaad iisoo sheegtaan lambarkiisa xagan ku qoran lambarka xagan ku qoran oo idiin sheegaya markasta screenshot iga soo qaada waa lambarkaas weye markasta lambarkaas screenshot iga soo qaada kadib ii soo dira 10,246 weelkayga kiinan waxaan u malaynayaa waa maartay ID kala weeye marka ID-gaas screenshot iga soo qaada ii soo dira insha allah haddii lahaydmo fadlan haddaad channelka subscribe like and share and comment wixii su-aalaad qabtan insha allah commentiga igu weydii wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jimca mubaarak dhammaan bahda Explore Option Somali